marwaafayeen xubnaha golaha sharafta leh kobaca dhaqaalaha marka laga eego qiimaha asaasiga ee joogta constant basic price baaxadda wax soo saarka ama GDP-ga deegaanka wuxuu sanadkan noqday 132 bilyan oo bir halka uu ka ahaa 2 sano ka hor 121.8 labadii sano mar baa la eega guud ahaan kobaca dhaqaaluhu wuxuu sanadkan gaaray 8.9% halka uu sanad miisaaniyadkii 2016 uu ka ahaa 7.8 kobacani wuxuu jawi ku habboon u abuuray maalgashiga iyo wax soo saarka deegaanka wuxuuna sahlay in la soo aruuriyo dakhli dhan 29.6 bilyan oo bir halka uu qorshe u ahaa 32.5 bilyan taasoo u dhigantay in boqolkiiba 9.9 qorshihii sanadka la qabtay si kor loogu qaado dhaqaalaha waxaa la asaasay shirkadda macdanta deegaanka iyo golaha sare ee horumarinta warshadaha iyadoo la abuuray jawi ku habboon horumarinta ganacsiga waxaa la siiyey shatiga maalgashiga 246 mashruuc kuwaas oo wadarta hantidoodu ay dhan tahay 18.9 bilyan oo bir lagana helay fursado shaqo oo ay ka faa'iideysteen in ka badan 8500 qof kobaca dhaqaale ee la hiigsanayo waxaa barbar socday maalgashiga aqoonta iyo teknolojiyadda iyadoo hindisaha Ethio Coderiska ay ka qalin jabiyeen in ka badan 222 oo dhalinyaro ah si ay ugu qalabisnaadaan xirfadaha casriga ee ka caawinaya helitaanka shaqada gaar ahaan dhanka teknolojiyadda iyadoo xukuumaddu aqoonsan tahay doorka dalxiiska dhaqanka iyo hal-abuurku ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha iyo dhiirigelinta maalgashiga waxaa mudnaan la siiyey horumarinta adeegyada dalxiiska iyo ilaalinta dhaqanka waxaad ka warhaysaan in la dhammaystiray xaruntii ugu horreysay ee dalxiiska ee Shabeelley waxaa kale oo la qabtay tartanno ilaa gaaraya ilaa 3 oo isugu jiray suugaan iyo ciyaar dhaqameed dhanka shaqo abuurka dadaaladan oo isbiirsaday waxay horseedeen in guud ahaan shaqooyinka la abuuray deegaanka ay gaaraan 174,000 oo qof halka qorshuhu ahaa 162,000 oo qof waxqabadkani waxa uu qayb ka yahay istaraatiijiyadda lagu yareynayo ku tiirsanaanta deeqaha dibadda iyadoo la filayo in 6 bilood ee soo socota laga saaro ku tiirsanaanta gargaarka raashinka ku dhawaad 700,000 oo qof si loo sii xoojiyo kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka waxaa la bixiyey 13,000 oo shati ganacsi halka la cusboonaysiiyey in ka badan 12,000 taas oo ka turjumaysa kobaca dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo fududeynta adeegyada ganacsatada waxaa baaritaan lagu sameeyey 44,123 ganacsi iyadoo laga tallaabo qaaday in ka badan 17,525 kuwaas oo lagu helay xadgudub shuruucda ganacsiga si kor loogu qaado tayada gaadiidka iyo adeeg bixinta waxaa la bixiyey in ka badan 5,000 oo taariko taas waxaa barbar socday dadaalada lagula dagaalamayo kontrabaanka xakamaynta sicir bararka iyo ilaalinta xuquuqaha macaamiisha si loo xoojiyo suuq hufan ganacsi cadaalad ku dhisan iyo xasiloonida qiimaha badeecadaha asaasiga dhanka horumarka kaabayaasha dhaqaale waxaan ku horeynayaa jidadka waxay xukuumaddu si ballaaran u maalgelisay kaabayaasha horumarineed ee lafdhabarta u ah isku socodka bulshada iyo kobaca dhaqaalaha deegaanka waxaa si buuxda loo soo gabagabeeyey 6 mashruuc oo 304 kilomitir dhererkoodu yihiin oo dhismo ah iyo 200 kilomitir oo xaadis ama ballaadhin ah kuwaas oo kala ah dhanaan ceel weyne mulli geedugaas madane dhagaxbuur awaare galluun leey dharaaye qooxle godgod iyo xaarid wadada wardheer buu hodle halka 4 mashruucna heerar kala duwan ay marayaan kuwaas oo kala cadad laceel barde 98% fooljeex dhagax weyne 85% qabri dahar gabagabo 78 har dhagax qubbi 75 waxa sidoo kale sanad miisaaniyadka 2019 u gudbay 6 mashruuc kuwaas oo kala erar casbuli lot 2 oo 70 maraya buundada ceelogaadeen 58 xoraa xaarisa 25 صلح أفعسى قرب بقولك بشان يتطبن يلاو مشروع أها كوي لبلابي سنة ميزات كلبية طبن لبكون يستيد طبن سيدا جد كحرشين يضرر يبوندة هيلوين يضع حكومات مناسين دونتو سيدك دقائن لو جبجبي مشاريع داس وحاسدو كلا حسود بدن إن لشيء مشاريع دا أركاب كلو يقانو أو أي وذجر ومالجلنا ين حكومته يبانك أدونك كواس وصنت كان كقابنا صدني أفر مشروع وكلاها ستيديو 8 شيد أو شيء iyo 10 mashruuc oo dayactirka wadooyinka iyo 6 mashruuc oo biyo mareenno ah oo laga hirgeliyay 11 gobol
waxaana dhammaaday 4 mashruuc oo dhismo ah oo dhererkoodu yahay 104 kilomitir ay kala yihiin gaashaamo daroor lot 1 galluun halooya korobo lot 1 mula qabri bayax lot 1 iyo garbo sandaxiile lot 1 dayactirkana waxaa dhammaaday 4 mashruuc oo dhererkoodu yahay 135 kilomitir wardheer lehelow erar biyo kulul qalanley dulcad laanqayr balli oomane si guud xukuumaddu waxay sanadka dhammaystirtay dayactir iyo dhismaba 743 kilomitir oo jidadka jayga ah waxaa mudnaan gaara la siiyey casriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka waxaa magaalada Jigjiga laga hirgeliyey mashruuca marinada casriga ah oo dhererkiisu yahay 10 kilomitir waxaana la dhammaystiray baarkiyada wiilwaal iyo sayidka waxaa gabagabo maraya dhismaha garoomada goday iyo dhagaxbuur garoomada ciyaaraha halka garoonka qabdidaare iyo akademiyada qarba ay marayaan 60% ilaa 65 horumarinta kaabayaasha magaalooyinka waxaa qayb ka ah ballaarinta wadooyinka laamiga iyadoo la dhammaystiray 6.6 kilomitir oo wadooyina magaalada Jigjiga iyo 1.2 kilomitir oo goday ah halka dhismaha 2.8 kilomitir oo qabdidaare ah uu marayo 70% iyo 3.5 kilomitir oo dhagaxbuur ah isna maraya 40% iyadana waxaa barbar socda layrgelinta jidadka magaalooyinka ama street light wadooyinka wardheer oo 1.2 kilomitir ah goday 1.2 kilomitir iyo hargeyle 1.2 kilomitir si loo xoojiyo maamul wanaagga iyo kobca maalgashiga magaalooyinka waxaa sanadkan dib u habeyn laga hirgeliyey 110 magaalo iyadoo la ansixiyey 25 magaalo waxaa kale oo barnaamijka canshuuraha hantida maguurtada ah laga hirgeliyey maamulada magaalooyinka Jigjiga goday dhagaxbuur qabri daare iyo qabri bayax tirada magaalooyinka deegaanka ee xubnaha ka ah Ethiopian Cities Association ayaa kordhay iyadoo hore ay ahayd 6 magaalo haddana gaaray 30 magaalo si magaalooyinkeenu ula jaan qaadaan bilicda waxaa 20 magaalo laga hirgeliyey qorshahagaha sidoo kale waxaa la soo gabagabeeyey diyaarinta kaadastarka magaalooyinka Jigjiga iyo goday halka laga bilaabay diyaarinta kaadastarka wajaale iyo qabri bayax kaabayaasha kale ee mudnaanta la siiyey waxaa ka mid ah adeega korontada waxaa la dhammaystiray laydhka 24 saac ee magaalooyinka Salaxaad iyo Xoob Hudad iyo Hulkado halka mashaariicda ay ogaadeen Dhoobaweyn Garbo Ujiwaaji Jiracle iyo Araabi ay marayaan heerar u dhaxeeya 10% ilaa 70% dhanka tamarta la cusboonaysiin karo ama solar powerka waxaa si buuxda looga hirgeliyey dig nustariiq gaashaamo iyo mirqaan iyadoo mashruuca booq uu ku jiro marxaladda tijaabada magaalooyinka Galaadi Feerfeer Daroor Marsin iyo Galxamur ayaa iyaguna maraya heerar fulineed oo u dhaxeeya 30% ilaa 75% mudnaanta ay xukuumaddu siisay kaabayaasha dhaqaalaha waxaa barbar socday kor u qaadidda wax soo saarka beeraha iyo damaanadda qaadka cuntada xukuumaddu waxay si gaar ah diiradda u saartay horumarinta waraabka beeraha oo sahlay in dhulka dhan 3800 hektar loo qaybiyey iskaashatooyin beeraley ah halka 2750 hektar ay beeraley iskood u maalgashadeen waxaa tababaro lagu kobcinayo awoodooda la siiyey 3800 ruux oo isugu jiray xirfadlayaasha beeraha iskaashatooyin iyo beeraley ganacsato ah taas oo gacan ka geysatay in la gaaro wax soo saar dhan 40.7 milyan oo kintaal si loo xoojiyo adeegyada fidinta beeraha waxaa la meeleeyey 1025 xirfadle halka 1689 xirfadle loo sameeyey korodh mushahar sidoo kale waxaa la soo iibiyey lana qaybiyey 34,000 oo kintaal oo abuur xul ah iyo 7,700 kilogram oo abuur khudaar ah iyadoo qalab iyo agab beerahana la gaarsiiyey 523 oo beeraley ah si dhul tayo leh waxna uga bixi karaan loo helo waxaa dib loo soo nooleeyey 42 oo hektaar oo dhul beereed ah iyo dhul daaqsimeed oo ay waxyeeleeyeen nabaad guurka iyo carro guurku iyadoo la adeegsanayo farsamooyin casri ah oo lagu ilaalinayo ciidda iyo biyaha xukuumaddu waxay mudnaan gaar ah siisay horumarinta xoolaha iyada oo xooga saartay caafimaadka xoolaha ballaarinta adeegyada xanaanada horumarinta suuqgeynta iyo tayeynta xoolaha si loo kordhiyo wax soo saarka loona xoojiyo kobaca dhaqaalaha waxaa cudurro laga daweeyey 9.8 milyan oo neef halka la talaalay 14.5 milyan degmooyinka cudurku ka dilaacay oo tiradoodu ahayd 85 waxaa 78 ka mid ah laga sameeyey baaritaano lagu ogaanayo cudurrada waxaa kale oo la dhammaystiray 6 maxjar oo yaryar
oo xoolaha lagu nasiyo oo ku kala yaala Cagasur Cobasha Hadhaawe Lehel Yucub Dalaad iyo Filtu banka horumarinta Itoobiya ayaa 13 iskaashato oo ka ganacsata xoolaha siiyay deyn dhan 270 milyan oo bir si loo xoojiyo ganacsiga xoolaha iyo awoodaha wax soo saarka si loo sii horumariyo kaabayaasha adeegyada xoolaha iyo suuqgeynta waxaa la dadalgeliyay ka shaqaysiinta 17 sayladood oo ka jira deegaanka iyo 3 shaybaadh oo ku kala yaala Fiiq Hadhagaala iyo Filtu waxaa kaloo la dadalgeliyay dhamaystirka maxjarka Jigjiga kaas oo ay ku baxayso 522 milyan oo bir isla markaana uu maalgelinayo bangiga adduunka horumarinta beeraha iyo xooluhu waa mid la jaan qaaday ilaalinta deegaanka xukuumaddu waxay xoogga saartay dib u soo celinta deegaanka iyo dhiraynta si loo xoojiyo horumarka waara oo raad cagaaran reeba waxaa la qaybiyay 8.5 milyan oo geed halka guud ahaan deegaanka laga soo saaray 13.8 milyan oo geed iyadoo la fuliyay barnaamijyo ballaaran oo dhirayn iyo dib u dhirayna waxaa kaloo wacyigelin deegaanka ku saabsan la gaarsiiyay in ka badan 2.9 milyan oo qof waxaana la bixiyay 42 shati oo la xiriira xaqiijinta tayada deegaanka iyo bulshada si loo xaqiijiyo ilaalinta deegaanka marwaafayeen mudanayaal iyo marwooyin shaqooyinka horumarineed ee xusay oo dhan waxaa natiijadooda laga cabiri karaa adeegyada asaasiga ah ee shacabku helaan adeegyadaas waxaa ugu horeeya helitaanka biyo nadiif ah maadaama biyuhu yihiin asaaska nolosha caafimaadka bulshada wax soo saarka iyo horumarka waara waxaa la dhammaystiray 16 mashruuc oo biyogelineed kuwaas oo isugu jira biyogelinta magaalooyinka iyo kuwa miyiga waxaana ka mid ah biyogelinta Baarey dhismaha Hafar Dhaamka iyo biyogelinta Qudumbuur dhismaha Hafar Dhaamka iyo biyogelinta Salaxaad biyogelinta Darnood biyogelinta Yoxoob kuwaas oo si weyn u kordhinaya helitaanka biyaha ee dadku ku nool magaalooyinkaas biyogelinta miyiga waxaa ka mid ah biyo xidheennada Nagaadweyne biyogelinta Gelo oo Qarbayaxa biyogelinta Maragaajo oo Qarbayaxa biyogelinta Qabalaha Jaamac Booqaad oo Harooreysa biyogelinta Qabalaha Mulacle oo Harooreysa biyogelinta Qabalaha Waafduug oo Wardheera biyogelinta Goobiyoodka Gabagabo oo Tuliguleeda goobiyoodka Darawada oo Galxamura biyogelinta Qabalaha Buundada Qoraxay biyogelinta Istibadeg biyogelinta Heegaale kuwaas oo kor u qaaday adeegyada biyaha ee bulshada reer miyiga gaar ahaan meelaha ay adag tahay helitaanka biyaha si loo kordhiyo ilaha biyaha waxaa la dhammaystiray qodista 28 ceel oo ku kala yaala degmooyinka iyo magaalooyinka ay ka mid yihiin Daroor Darnood Sagag Lagahidda Goljanno Dhuunyar Mula Dhagaxbuur Shineele iyo Jigjiga oo 7 ceel Jigjiga kaliya weey waxaa kaloo socda qodista 7 ceel oo dheeraad dhinaca kale dayactirka iyo hagaajinta ilaha biyaha waxaa lagu guuleystay in la fuliyo 229 dayactir iyadoo qorshuhu ahaa 130 oo kaliya waxaa ka mid ah dayactir iyo hagaajin biyogelinta Shilaabo iyo Awaare tani waxay muujinaysaa dadaalka lagu xoojinayo joogteynta adeegyada biyaha iyo in laga faa'iideysto ilihii hore ee jiray waxaa sidoo kale muhiim ah in la xuso horumarka laga sameeyay adeegsiga tamarta qorraxda iyadoo 64 ceel lagu rakibay nidaamka tamarta qorraxda ama solar taasoo gacan ka geysanaysa dhimista kharashaadka kordhinta joogteynta adeegga iyo hubinta in bulshada si joogto ah u hesho biyo guud ahaan heer daboolka helitaanka biyaha nadiifta ayaa la gaarsiiyay 250.3 iyadoo sanadkan laga soo qaaday 50.8%